bisadan waxay ahayd mid aad u nasiib badan waxuna weligood kuma dhicin waxayna had iyo jeer ku guulaysan jirtay inay ka fogaato daladaha dadka. habeenada ka mid ah gabadhii ayaa aragtay iyada aad ayayna ula yaabtay. si kedis ah bisadii ayaa sax horteeda ka soo muuqatay. markii gabadhu aragtay iyadoo soo dhacaysa aad ayay u baqday, laakiin nasiib wanaag bisadu waxay ku soo dhacday laamaha geedka si tartiib ah ayayna hoos ugu soo degtay. gabadhu waxay sii haysay daawashadeeda iyadoo isqarinaysa. bisadii waxay fadhiday waddada iyadoo ciyaaraysa keyboard markii si kedis ah uu hortooda ka soo muuqday goobo cagaaran. markaasay bisadii ku dhex booday. gabadhiina way raacday oo iyaduna goobadii ayay ku dhex booday. ma aysan ogeyn inay qarka u saaran tahay inay gasho adduun yaab leh. adduunkan waxaa ku noolaa dad aad u yaryar. bisadiina way la yaabtay markay gabadhii halkaas ku aragtay. bisadu waxay u sharaxday gabadha in bini'aadamka aan loo ogolayn halkan. gabadhu waxay ballanqaaday inayna wax dhib ah samayn doonin. iyadoo aamintayna bisadii waxay go'aansatay inay kaxayso. qaar ka mid ah dadka yaryar ayaa isticmaalaya wiish si ay shaqada u aadaan. mid ka mid ah oo la yidhaahdo Jerry ayaa ku martiqaaday gabadha iyo bisada inay ku soo biiraan. dhammaantood waxay raaceen wiishkii. kadib markii ay kor u kaceen, Jerry wuxuu isticmaalay mashiin uu u yeerayo dhammaan bakaylayaasha si ay u yimaadaan oo ay ula kulmaan gabadha. wax yar kadib dhammaantood waxay noqdeen saaxiibo dhow.